hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka duulaya awaamirtii taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee heedla dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha ah ee ku dhex baahay bulshadeena ayaa shalay oo ahayd taariikhda 23 bisha Agoosto 2025 wuxuu gacanta ku dhigay waxyaabaha idin muuqda hortiina yaala oo ah daraagis ay bulshada Soomaaliyeed dalinteedii ku waxyeelowday isticmaalkooda waxaan horta marka hore u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqanka suuban leh ee wanaagsan ee canshuurta sida wanaagsan u dhiibta kuwa oo ka digtoonaaday wax walba oo bulshada liddi ku ah dhanka kale waxaan ambaaraynayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee intay hanti qaaday maalkoodii qaatay baxay dal shisheeye tagay ee soo qaaday Tramadol iyo Bilibili si dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkoodii loo baabi'iyo waxaan oran karayaa waa musiibo waa barmadow oo ku taala ganacsatada Soomaaliyeed kuwoodii liita waa barmadow oo ku ooli doonta sharafka iyo karaamada ganacsatada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa faleembada idin jeeda waxa lagu soo qariyay containerka hortiisa si loogu mareeyo askarta ugu malayso inay faleemba ku jirto laakiin waxa lagu wadaa Tramadol 17 kartoona Bilibili 112 kartoona sharoobo codeine ah oo 120 kartoona sida labada container ba idin kaga muuqato waa daawo isla markaana waa sun daawadu waxay daawo tahay markii uu dhakhtar soo qoro daawadu waxay daawo tahay markaad isticmaasho qiyaasta lagugu talagalay laakiin adoo caafimaad qaba oo xay ah hadaa daawada isticmaasho sunay kugu noqon kartaa taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya badqabka dhalinta Soomaaliyeed ee bariyahan dambe caadaysatay isticmaalka daraagiska waxyaabaha aan loo baahnayn maandooriyaha ah ayaa howlgal balaaran ka wada dhammaan furdooyinka ay gacanta ku hayaan iyo kontaroolada ay ka soo galaan waxaan ognahay ganacsato fara badan oo ku foogan inay dalka keenaan waxyaabaha waxaan la midka ninkan intii baxay tagay dal shisheeye ee 2 container ka soo buuxiyay Tramadol iyo Bilibili asxaan uma falin bulshada Soomaaliyeed waxaan oran karaa ganacsatada Soomaaliyeed ee wanaagsani arintani ha ka jawaabaan waxay ugu jawaabi karaan inay ka hortagaan waxyaabaha noocan ah ninka ganacsatada ee ku dhiiranaya hantidiisa inuu ka soo bixiyo Tramadol iyo Bilibili inay yiraahdaan magaca ganacsatada Soomaaliyeed naga hadlaynin waxaan jecelnahay haddaan nahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo fulinaya dhammaan xarumaha eelboorka dekeda kontaroolada laga soo galo magaalooyinka ayadoo la fulinaya amarkii taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sare Gutaasad Ismaaciil Cabdullaahi in laga bilaabo wixii hadda ka dambeeya kan cabaana talaabo laga qaadi doono midka keenana talaabo laga qaadi doono haba u darnaadee ninka hantida inta la eegno $1,000,000 ka soo baxshay si uu dhalinta u dhibaateeyo bal ka warama ninka caruurtiisa wuxuu geystay iskuula iyo goobo ammaana ay wax uga bartaan wuxuuna soo qaaday Tramadol si kuwa kale u dhibaateeyo laakiin kama marna waxa cabaya awlaadiis ayaa kamid ah waxaan leeyahay ganacsada Soomaaliyeed barta madow iska tira oo ku adeega sharafkiina iyo karaamadiina iskana qabta ganacsatada noocan oo kala ah ee dhaawacaysa sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin